xafladda sagootinta ardaydan oo soo agaasimay maamulka macadka al-sunna oo maxad gaar loo leeyahay oo ku yaala xirada qaxootiga ee xagar dheer ahna maxad laga barto luqadaha qalaad iyo xirfadaha sida caafimaadka iyo saxaafadda waxa ka qayb galay bahda waxbarashada xirada arday waalidiin iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah ardaydan oo dhameystay luqadda Ingiriiska iyo xirfadda caafimaadka ayaa sheegay inay u tahay maalin weyn oo ay ka dhibeeyeen hamigoodii waxbarasho waxaana geesta kale bogaadiyay maxadka al-sunna qaar ka mid ah dadkii munaasabadan lagu xasumay magacaygu waa Daahir Nuur Yiro waxaan dhiganahay barnaamijkan al-sunna private institute 6 bilood ayaan dhiganahay waxaan dhiganahay luqadda Ingiriiska midaas oo ugu qasabtay in luqadda Ingiriiska adduunka caalamka dhan laga hadlo midaas oo hadii maanta adduunka caalamka hadii aad luqadda aad garanaynin aad iyo aad effect ay kugu noqon karto waxyaalo badan ay ku caqabad ay kugu noqon karaan sida hadii daawo aad doonto hadii wax walba aad doonto aysan ku guurgalaynin ilaa aad luqadda aad garanayso marka waxaan aad nafta isku baraarujiyay inaan luqadda Ingiriiska si fiican iskaga dhiso aqoon ama wax oo cadeynayso hadhow luqaddaas inaan soo bartayna aan ka qaato ayadana xaaladaani maca Cabdi Cali maadada Ingiriiska baranay muddo 6 bilood ah barnaamijka al-sunna private institute aan ka baranay waxaan u mahadcelinayaa waalidiintayda iyo macallimiintayda runtii aad iyo wanaagsan ardayda iyo laba qayb ahaan soo bandhigeen koow waxay soo bandhigeen riwaayad lagu magacaabay wadaninimada muhiimadda ay leedahay yani shakhsiga in waddankiisa uu jeclaado luqadda Ingiriiska waxaa lagu dhahaa patriotic shakhsiga oo jeclaado yani waddankiisa yani majaajilo arrintaas turjumayso ay soo bandhigeen waxa kale ay soo bandhigeen qaybta ayada waxa soo bandhigay kuwa luqadda Ingiriiska bartay oo marka ayada qalin jibinayeen ardayda kale caafimaadka soo bartay ayaga waxay soo bandhigeen majaajilo ama riwaayad ku saleysan waxa la yiraahdo qadaraga daacunka ama shubanka xanuunka la yiraahdo siyaabooyinka loo kala qaado saameynta ay leedahay iyo waalidka yani in uu ogaado xanuunka isaga ah saameynta uu leeyahay maamulaha macadka al-sunna Cabdinaciim Maxamuud oo hadlay gabagabadii munaasabadda ayaa ka warbixiyay ardayda qalin jabisay dadaaladii ay ku soo bixiyeen ardayda iyo muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay da'yarta gaar ahaan luqadaha qalaad iyo xirfadaha in la barto ardayda halkan aan maanta ku guddoonsiinay abaalmarin ah waxay abaalmarintooda ahayd ardayga bogay koorsada Ingiriiska ama caafimaadka waxay qaadanayeen shahaado wax loo yaqaan recommendation oo faala ah iyo wuxuu qaadanay ardayga boog iyo wuxuu qaadanay baager ee loogu talagalay inuu ku qaato alaabtiisa waxa inta u dheereys ardayda inay qaataan solar kaas oo ah mid himiladiisa iyo riyadiisa aan la yimid ana ugu talagalay in ardayda aqoontooda iyo tayadooda ay saacideyso kordhiso baadama dadka iskaga noolyahay xaal qaxootinimo tabarta qoysaska ay kiimaadeen yar tahay in aan marka tayeeyo ardayda si aqoontooda aan u dhiso waxay ugu qasabtay inaan la yimaado riyadeyda oo ah inaan solar lamp qaybiyo maanta riyadeyda way ii ooftay waxaan inta ii dhiman aan rajeynayaa haddii Ilaahay nafta nagu sameeyo inaan guusheeda ka gaaro insha Allah biidnillaahi kariim waxaana mahad gaar u naqayaa waalidiinta ardayda ee u soo dhawr adeegay muddada gaabneed ee aan soo qaadanayn casharadeeni ee la soo maray dib badan ayaga soo sumuujiyay firfircooni dadaal iyo juhdi maanta ay ku maasan yihiin ardayda iyo waalidiintooda iyo maamulka iyo macallimiintaba in maanta miraheeda aan dhalino oo ardayda ay aan awaalbarino Ahmed Abdullahi Jaamac xiriyaha Dadaab